guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya si isku mid ah lanku xusay maalinta 8 Maarso oo ay maalinta hanraabta Soomaaliya sida faahfaahinada wararku Yohaniinka Direen wariyaalkana oo munaasabadooda si ku qayb galay munaasabadan oo ahayd xuska maalinta caalamiga ah haweenka caalamka ee 8 Maarso ayaa waxay ka qabsoontay hoolka nabadda ee degmada Baladaxaawe ee gobolka Gedo iyadoona ay soo qaban qaabiyeen munaasabadan ururka haweenka ee Barwaaqo waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada Baladaxaawe ee gobolka Gedo oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Baladaxaawe Maxamuud Xeyd Cismaan madaxa maaliyadda degmada Diiriye Gaarane Xasan iyo taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo Mudane Cali Xasan Deer odayaal dhaqameed iyo haweenka ururka Barwaaqo ugu hore waxaa munaasabadan daafuray gudoomiyaha degmada Mudane Maxamuud Xeyd Cismaan iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo Cali Xasan Deer iyagoona ugu horeyn u hambalyeeyay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan haweenka Barwaaqo oo iyagoo u taagan ka qayb qaadashada xasilinta deegaanka waxaana sidoo kale mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan ay dhankooda tilmaameen caqabadaha iyo duruufaha adag ay ku shaqeynayaan haweenka Barwaaqo iyagoona ugu dambeyn ku amaanay waxqabadka ay ka hayaan degmada Baladaxaawe ee gobolka Gedo ooyinkaanagiyow kuwii dadka soo ababiyow aad baan ugu mahadcelinayaa 8 Maarso waa soo dhaweyn waxaan kaloo soo dhaweynaynaa saa nabadda iyo nadaafadda iyo Soomaalinimada leh oo idu istaagteen adinka oo inta qof bina aadana ay ku xiriirtiin ku xidhan haddana carruurtii gadaal oo fikiraysaan hawshii degmada iyo deegaanada iyo horumarkii loosaad oo qayb qaadanaysaan aad baan ugu mahadcelinayaa waxa maanta aan ammaan u hayo urur haween ama haween meel kasta joogaanba waxaad malayn kartaan maaha bani aadamka meeshu ka socdo ama oo ka dhaqaaqo waa soo dhaweynaynaa maalintan waa maalin aad noogu weyn keligii maahan ka maamul ahaan annagu waa soo dhaweynaynaa degmada Baladaxaawe saa u soo dhaweyseen oo ugu dabaaldegaysaan si la mid ah ayaan maaragtay u soo dhaweynaynaa waan idin hambalyaynaynaa muujinta aad muujiseen maalintan ka degma ahaan magac way noo tahay meelo badan oo waxa suurtagal aan aysan ka dhacayn xafladana goobta ama maaragtay aan laga xasuusnayn ayaa suurtagal marka sida aad u update gareysantiin oo la socotaan mar waliba waqtiga iyo maaragtay xaaladda aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad u soo dhaweynaynaa geesta kale waxaa munaasabada 8 Maarso ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka Barwaaqo Maama Canab Khulule iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka haweenka oo iyagu madasha ku soo bandhigay saargadood iyo hal ku dhigyo ka turjumaysa doorka haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan bulshada hay'adaha samafalka oo nala soo shaqeeyay oo u weyn tahay hay'adda NCA oo wax nagala soo qabatay baahida haweenka bulshada hay'adda NCA gacanta aad loogu haysaa waxay ogtahay baahidanada waxay ogtahay gacantiganaga waxay ogtahay wax dhibaato lagu dhacay waa hay'adda kaliya haweenka gacanta ku hayso markii gobolka Gedo special anaga reeb waxa waa ku tirsan waxaan kaloo ku tagay nagala qayb qaata guddiga fircooniga dacatiga haweenka waxaa kaloo idan nagala qayb qaata sasuro oo ilmaha iyo hooyooyinka dhab isku aruuriso oo dadka kala baafay raadiso dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa
سيرة ضاكلة هيدا وجامعة وقلوا وحسيسو تكنيكا طبعا تيجي قليل وتقناية تكنيكيشن وحسيسو وإنها فرصنا جعنته وحلقة بطة لما هيدا هاس محل جاء international كسوق جرو وأول ما هالعلنا وين نصور شقيان وهذا نصور شقيان بالديار عبدالرزاق شيخ اسماعيل عبد الساق أفريقيا وررك كوفر قلب تي في بلد حاو